dazu noch Fragen? Ja. Selbst die Linkshänder sind bei uns willkommen. Ja. Weil er trägt die Waffe rechts, wenn man sagt, und ich trage die Waffe links. Und was ist das Verschiedene? Eben, selbst die Linkshänder, also wir machen keine Ausnahme. Jeder muss, ja, bei uns dürfen Frauen und Männer kommen links und rechts hin. Also das spielt keine Rolle. Ja. Vielfalt ist Reichtum, genau. auf Deutsch gesagt. Ja. معناها وسيدا أي حرنimada ay leeyihiin hadaya ka sheekeynaya ayaa ninkan wuxuu yiraahday ama naag ha ahaato ama nin ha ahaado markay sida hubkaas oo kale ama bistoolooyinka qaadanayaan qof waxaa jiro gacantan ku xoog leh oo bidixda ah ama kan midigta ah ku xoog leh qof walbeetaba asaga go'aansanayo meeshii uu ka qaadanayo bistooladaas oo kale haduu ka qaadanayo bidixda ama uu ka qaadanayo midigta qofka asaga go'aankiisa leh. Zu diesem Punkt möchte ich noch mal etwas hinzufügen. Bei uns hat es verschiedene Glaubensgemeinschaften, die bei der Polizei sind. Wir haben jüdische Mitarbeiter, wir haben muslimische Mitarbeiter und christliche Mitarbeiter. Und alle bekleiden den Beruf als Polizist mit dieser Gesetzgebung, mit einer Gesetzgebung. Jawohl. haddaan ku daro saaxiibkayga intuu idin sharxaw kaleeto oo qof walba inuu u madax banaan yahay meeshuu hubka ka qaadanayo ama arrimihiisa u madax banaan yahay anaga ahaan waxaa jiro diimo kala nooc ahaan qabnaa haddaan booliis nahay diimahaas oo kala sida diinta oo kirishtiga oo kaleeto oo kala nooc ama muslim ha noqoto ama yuudish ha noqoto waxay ahaataba diimo kala nooc ahaan noqon karo macnaha hal sharci kaliya jiro sharcigaas lagu wada dhaqmaaya diinta ahaatid shaqo ayaga kuma lahan iyo waxa adiga aad haysatid. Vielleicht haben Sie der politischen Landschaft, die schon länger hier gewesen sind, schon gesehen. Wir haben auch dort verschiedene Kulturen, die in der Politik vertreten sind. Leute, die ehemals aus der Türkei stammen, Leute, die aus Kenia stammen, ist bei uns normal, wenn man sich integriert. ayaga ahaan dadka dhaxdiisa ah wax oo kala nooc ah uma arkaan macnaha jaa way la qabsadeen haday noqdaan macnaha dadka oo wadankan siyaasadiisa maamulo dadka haday ka kala imaadaan wadamo kale oo kaleeto sida Turkiga haday ka imaadaan ama meelo badan sida meelahaas uu sheegay meeshay ahaataba dadka waa u siman yihiin dhaqankooda iyo diintooda iyo waxooda dhan way yaqaanaan macnaha waa u siman yihiin. Das ist jetzt gerade ein schöner Übergang zu der nächsten Frage. Wie gehen Sie mit Rassismus um? صح. Ja. Okay. Hat eine Frage. Ja? Ich sehe dich nicht gut, Baby. Ich bin der Skiwerfer, ja? tusaale ahaan inta iyo Geneva farqi ma u dhaxeeyo oo su'aasha hore loo soo inay isku shaqeeyaan ma systemka inta adag xagga waxa ku aragnaa madow badan inuu booliis yahay inta laakiin ja wie ist das Gesetz zum Beispiel Kantonen zum Beispiel meint jetzt zum Beispiel die wo wohnen im Genf. Ja. Und die, wo wohnen jetzt anderes deutschgebietige Kantonen. Ja. Ob das ist das gleiche Gesetz ist, weil sieht immer wieder dunkelhütige Leute, wo Polizisten sind, aber hier ist eher weniger. Also, ganz einfach, die Schweiz verfügt über ein Strafgesetzbuch, ein einziges, schweizweit. Ja. معناها سويسكا sidiisaba hal buug oo sharciyadooda ku qoran yahay ayaa jiro hal buug. Dann zu den Kantonen. Die Schweiz besteht aus 26 Kantone, die eigene Staaten sind. Das ist ein Staatenbund. Bern ist nicht die offizielle Hauptstadt. Die Schweiz verfügt keine Hauptstadt. Swiiska waxaa jiro 16 oo gobol ah jiro gobol walbeetana asaga sharcigiisa wato asaga sharcigiisa u yaalo ma la dhihi karo macnaha beerna waxa way magaalo madaxdii Swiiska lama dhihi karo laakiin gobol walbeetaba asaga u madax banaan. Die Schweiz ist im Grunde genommen ein Mini-Euro mit dem Hauptort
Bern, wo die Regierung sitzt, aber muss nicht immer dort sein, aber es ist jetzt einfach so beschlossen worden. waxay ku balameen markay u fiiriyaan waa meel yar Yurubta kale markay u fiiriyaan macnaha Beerna waa jirtaa Beerna meeshaas ay fadhiistaan inkastoo meeshaas Beerna aysan ku ekeen laakiin Beerna waa meesha ay fadhiistaan ama ay ku shiraan ama ay fadhiistaan. Jeder Kanton ist ja ein eigener Staat, hat auch die Möglichkeit, jederzeit aus der Schweiz auszutreten oder eigene Verträge mit anderen, ist rein theoretisch möglich und können eigene Staatsverträge abschließen. In St. Gallen haben wir einen Staatsvertrag mit Österreich, wo die Polizei in Österreich, also wir in Österreich auch hantieren können, wenn sie uns suchen. Also das sind Staatsverträge. Swiiska sideedaba waxa waaye qof walba wixiis waa u banaanyahay hatta waxay dhihi karaan annaga hadaan nahay gobolkaas waxaan nahay waxaan u banaanahay magaala nahay waxayna waa u banaanahay ma fahmaysiin waxaan ka wado macnaha gobol walbeetaba wuu dhihi karaa ama magaalo walba way dhihi kartaa aniga waa idinka baxay Swiss hadaatiin sharcigiinas waa ka baxay aniga waxaan qabaa sharcigayga gooni waaye hadda ka soo qaado oo kale Sangaalan oo kale wuxuu yiri haday noo baahnaadaan Australia oo kale wax nooga baahdaan waa caawinayna waa u tagi karnaa maxaa yeelay sharciga ayagu u yaala waay marka way dhihi karaan awood way u leeyihiin Swiiska inay dhahaan annaga hadaan nahay gobolkaas magaaladaas hadaan nahay sharcigeena annaga u madax bannaan saas iyo saasaan rabnaa einzigartig, aber ja wax fiican waa uu leeyahay qofkii wixiis u madax bannaanaado wax fiican waa gut mit dem Rassismus, wie gehen Sie genau. mit dem Rassismus um? Su'aasha kale oo ku sii xigtay jawaabtaadu waa ku qanacday sax laakiin waa sinayto si fiican inuu ugu jawaabo laakiin waa saasa su'aasha kale waxa waaye haddii asagoo shaqeynayo rasistanimo iyo waxyaabahaas uu arko siduu ugu dhaqmaya siduu u sameynaya ama suu uga baxsanaya waxyaabahaas haddii wax rasismus amal ah ama takoor oo kaleeto midab sooc oo kaleeto waxyaabahaas oo kaleeto waxay noqotaba Wenn Sie mich persönlich fragen, toleriere ich keinen Rassismus. Der Staat toleriert auch keinen Rassismus. Die ist strafbar und auf Antrag kann eine Anzeige gemacht werden. asaga ahaan hadaa weydiisin kuma faraxsano macnaha waxyaabahan midab takoorka ah ama soocida ah macnaha wax uu ku faraxsan yahay uu ku qanacsan yahay ma ahan dawladda hadaa weydiisin waa isla midkii kuma qanacsano qofkii saas oo kale lagu arko oo sameeyana waa la dacweynaa walibana sharciga macnaha waa la tiigsanaya ishtraaf weyn waas كنتون سيارة هشيسك عالمية ملكة ودما كله nochmal die vorherige Beantwortung Sie haben ja gesagt zum Beispiel in der Schweiz jeder Staat oder Kantonen kann schon sagen, ich trete weg, zum Beispiel Gesetz her. Wir möchten unsere Gesetz weitermachen, unsere Gesetz und unsere Sache. Zum Beispiel, Sie haben gesagt, im Österreich, wenn Sie brauchen etwas, Sie können helfen. Polizeiliche, können wir Unterstützung im Vorarlberg zum Beispiel leisten. Oder Kollegen, es gibt gemischte Patrouillen, die im Rheintal unterwegs sind. sowohl auf der Schweizer Seite als auch auf Österreicher. معناها بوليس كحقيس مركي لقى هاللو. Aber wie ist das zum Beispiel, er meint, im Kanton St. Gallen kann das in der Schweiz sagen, ich bin nicht einige Ideen, ich will ein anderes Land etwas zusammen machen, zum Beispiel wie Österreich, als Politik auch. Oder allgemein. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, rein theoretisch könnte der Kanton St. Gallen beantragen, ich trete aus dem Bündnis, aus der Schweiz aus und ein Gesuch stellen, ich möchte mich Österreich im weiteren Sinne der EU anschließen. Ist rein theoretisch möglich. ومعقول سؤال ويديسي إن كسوقات كانتون سنغالن أي دهان معناها أنا أهان وحن كبحناي سويسكي وحن وحلا حيرانينا سيدا قبل كاس أستراليا كليتان لحيرانينا أيجان رمنا أوجا ما يوروبيش كأينا إسكولاميد أهانو شرعية دودي وحيا بهاس.
Es ist gerade von einem Monat passiert, dass die Kantonsregierung abgestimmt hat, wollen wir das Vorarlberg, wo zu Österreich gehört, anschließen an die Schweiz. Und dann hat unsere Regierung gesagt, nein, momentan besteht kein Bündnis. Das müssen die Leute im Vorarlberg selber wünschen. Ja. هذا ستمان كهر وحد عدي إن معناها أي سنقالن أي عطسدين أي دهين معناها عطسي درسدين أنا فورالبرغ ماشل ده أي أسترايخ وحمسلو وده قيبسن كرنا مكول معناها من نقول كران أيها فورالبرغ أو كترسن إن أسترايخ إن ينقدان إسويس أنا جنا كترسن هذان marka ninka madaxda uu ahaa wuxuu yiri maya ayaga inay Vorarlberg ayaga inay codsi soo dirsadaan waaye ay dhahaan inaan adinka idinku darsanaan rabnaa. Weshalb ist das in der Schweiz möglich? Das ist die Form der Demokratie, dass alle Bürger abstimmen können, ob Mann oder Frau, wenn das gesetzliche Alter vorhanden ist, stimmberechtigt ist und man kann, das Volk bestimmt die Gesetze. Deshalb ist es bei uns möglich, solche Abstimmungen. sababtaas darteed ayay macnaha Swiiska xor u yihiin waa dimuqraadi waaye qof walbeeto oo macnaha wadanku u dhashay naag ha ahaado nin ha ahaado waa wada codeynayaan codka wuxuu ka imaan karaa bulshadu ka imaan karaa oo wadanka ah oo aanka burgerka ah oo maaragtay Swiiska noqday ama Swiiska ah ayaga codeyn karo codeyntaas lagu dhaqmaa waa dimuqraadi. Gut, sind in diesem Zusammenhang noch Fragen? wax su'aalo ma qabtiin intaan soo sheegnay? Sind noch Fragen zum Rassismus? Erleben Sie überhaupt Rassismus hier in der Schweiz? haddii uu soo noqdo su'aasha ahayd rassismuska ama midab takoorka ama waxyaabahaas oo kaleeto oo lagu takoorayo wax rassismus ah ma la kulanteen adinka ahaan? Ja. Ja, in welcher Form? noocee ula kulantay rassismaha waa badan yahay noocee takoor noocee ah la kulantay. tusaale ahaan ana waxa ula kulmay waxa jiro nin dariskayga hoos degan marka ninkaas weekendigo kale markuu cabsan yahay oo waxaan igula hadlaa ereyo sidii aan meeshaan aan u dhalayna dalkayga ku noqdo inaan madow ahay marka wax badan u dul qaatay habeenada kamid ah booliiska ay marka codan ka duubay booliiska codkaan tusay booliiskii marka wax oo reaction dheer ka bixin aniga imaadeen waxay dhahay ninkan waa khaldan yahay waa cabsan yahay iskaga dul qaado hadduu mar dambe kugu sameeyo maxkamadda tag ay soo dacweyn markaas aan ka shakiyey booliiska inay xiriir leeyihiin. Es gibt einen Nachbar, ein Mann, sein Nachbar, wohnt im gleichen Gebäude und hat immer wieder bekommen ein Schimpfwort, zum Beispiel Schimpfwort wie, weiß ich nicht, hat nicht beschreiben, Schimpfwort, ja, also wie Rassismus, ja, wie Rassismus. Und einmal war in Polizei sogar und hat auch Stimme aufgenommen und Polizei gesagt, das ist seine Stimme und das ist oft so passiert. Jetzt will ich etwas passieren. Und Polizei hat nicht so Reaktion gemacht. Sie waren schon dieser Mann, aber dann haben sie gesagt, weil er betrunken ist, kann man nicht machen, wenn weiter so geht oder weitere Probleme, dass er noch Anzeigen machen kann. Also, es gibt leider Leute, die rassistisch sind. Ich denke, das wissen Sie umgekehrt auch bei Ihnen. Diese Form gibt es. In der Schweiz ist es strafbar und richtig, man hat die Möglichkeit, wenn jemand benachteiligt wird, schikaniert wird, dass man gegen diese Person eine Anzeige machen kann. Aber man muss es selber Anzeige machen. Sobald die Freiheit einer Person eingeschränkt wird, gilt es als Rassismus. Jeder hat die gleiche Freiheit.
سويس كسان أغنى معناها واقحهم هاي يراهدي واجرة مدبت كور واجرة أما عنصرني ما واجرة رسيسمس واجرة رسيسمس ككلية أيها حاجة ولا معهن حتى أنا أهان ويرا أنا قلنا المامي دتك كليته أو أنا سويس كأن حتى عنصرني ما وكي ما أنكرتها لبعض نعمل عنصرني ما وكي ما أنكرتها يودا لكن qofka hadii la caburiyo ama wax lagu sameeyo ama resistnimo lagu sameeyo oo midabta koor lagu sameeyo waxay ahaataba wuxuu xaq u leeyahay macnaha inuu qofkii maxal ansayga sameeyo inuu dacwo qorto uu dacweeyo ayuu xaq u leeyahay macnaha qofkii hadii lagu soo xad gudbo bini'aadanimadiisa ama la caburiyo xaq u leeyahay inuu uu dacweeyo macnaha passiert Rassismus wenn ich hier als Schweizer, wir mit hellen Haut, nach Somalia kommen, ich bin ein Christ, erlebe ich das vermutlich auch. Warum? Ich bin eine fremde Person, man kennt mich nicht, ich sehe anders aus. Man hat Angst von dieser Person. Und das Einzige, was hilft in diesem Zusammenhang, man muss einander kennenlernen, man muss aufeinander zugehen, man muss miteinander sprechen. Dann geht auch der Rassismus vorbei. Wenn man einander nicht kennt und jeder lebt für sich, hat man Ängste, die sind zum Teil unbegründet. maxay u dhacdaa in midabta koorka caburinta racismuska maxay u dhacdaa ayuu yiraahdo waxay u dhacaysaa hadii ka soo qaad uu yiri aniga ahaan aan tago wadan kaleeto sida aniga waacadahu yiraahdo wadan kale hadaan tago sida anagoo kale uu noo yimaado dad madmadow maxaa yeelay aniga waxaan u yiri diin kale aan ahay kristaan ahay waacadahay waxaan aad wadan kaleeto dad madmadow degan yihiin ama diimo kale haystaan oo kaleeto dadku way iga cabsoonayaan waa laga cabsoonayaa maxaa looga bixi karaa laakiin waxyaabahaas waxaa looga bixi karaa in la isdhaxgalo oo qofka kaleeto macnaha uu u tago oo uu barto oo maaragtay labada qof haday isbartaan cabsidii meesha ka baxayso marka saas daraadeed sida isdhaxgalka oo kaleeto isbarashada oo kaleeto waxyaabaha dhibaatada keenayo ayay qaadaysaa لعل ayaga booliisay way haday lacal bini aadan waaye ay galaan qalad ay galaan meelaha kale oo ka sareyso aad la sii xiriiri kartid sagt ihr sind ja Polizist aber ihr sind auch Menschen wir sind nur Menschen genau und ihr wenn seid auch Menschen genau und Frage ist und noch etwas wir stammen alle schlussendlich von den gleichen Leuten ab. Wir kommen alle aus Afrika. Unsere Vorfahren sind einfach weitergelaufen bis nach Europa. Gut. Okay, wuxuu leeyahay macnaha su'aasha waa weydiinaya waa ku celinaya laakiin se intaana dhameystirin su'aashii macnaha wuxuu yiri anaga bini aadan sax waa adinka xataa bini aadanaatiin bini aadanana intee ka imaanaa anaga xataa Afrika xataa waa ka nimaanaa dad waxaa jira Afrika ka soo lugeeyay oo inta yimid oo kale oo cadcad ama ha noqoto madow marka anaga xataa Afrikaan ka imaanaa ayuu leeyahay Entschuldigung nochmal, die Frage ist zum Beispiel, wenn etwas Unrecht erfüllt diese Person, weil ihr Polizisten Menschen sind und er fühlt Unrecht, gibt es irgendwo höhere Behörden, wo er seine Probleme anstellen? Genau, ja. Jawohl. Also, die Polizei, wir sind normale Bürger. Wenn wir etwas falsch machen, kann man auch gegen uns eine Anzeige machen. Wir haben nicht mehr Einfluss, wir haben nicht mehr Macht. Das ist unser Arbeitsfeld. Aber wir sind Bürger wie Sie auch, gleichgestellt. Annaga haddaan nahay askar aan nahay oo aan qalad galno qalad waa gali karnaa anaga xataa bini aadan aan qalad waa gali karnaa haddaan qalad galno macnaheedu wuxuu yahay inaad dacwo qoran kartaan ansaaga qoran kartaan oo dacwo qoran kartaan dacwada haday bilaabato annaga awood ma lihin macnaha awoodda waa naga dhamaatay bas dacwadaas waxaan u nahay waa u simanahay annaga yaadinka dacwada xageeda oo u simanahay macnaha awood ay ku faanaan malahan markaas hadee la soo dacweeyo macnaheeda
ayaga iyo adiga isku xaqaatihiin dacwadiina la dhageysanaya يا أنا ما عندك ما كرخبير تدك أنت كرخبير ويل كيجا معلم عسى يسد عفر ولا السعودية وكيس السعودية وحاليا وضد بنسايد وأكوك وضع لي سد حاليا استاج ويل كيجا كذا مركب بوليساك نفتي في اسمه ملقيابة Sie wohnt nochmal. Kirchberg. Kirchberg. Ja. Ich wohne nicht in St. Gallen, Entschuldigung. Ja. Sie wohnt Kirchberg. Es ist passiert einmal ihr Sohn mit anderen Jungen, 4 Jungen, und die Polizei hat untersucht. Sie haben die anderen nicht so fest untersucht, aber ihr Sohn, sie haben Kleider auch weggenommen. Kann das sein, Polizist auch manchmal Rassismus hat? Weil ihr Sohn war dunkelhäutig und die anderen helle Leute und sie haben nicht so viel kontrolliert wie die anderen. Gut, sagen wir so, es sind auch Empfindungen. Es kommt leider vor, gerade in der Drogenszene, dass es sehr viele Leute aus Afrika dort tätig sind. Und das ist durchaus möglich, dass als Polizist auch ein wenig auf Leute geschaut wird, die aus dem arabischen Raum kommen, aus Afrika. Das hat mit den Delikten zu tun. Kann man nicht schön schwätzen, es kommt leider vor, das haben Sie vielleicht selber auch schon gesehen. In der Regel sind Polizisten auch nur Menschen. Sind wir alles Gutmenschen? Haben wir alle die gleiche Vorstellung? Oder es hat auch mit Sympathien zu tun. Er hat vielleicht Sympathie für mich, Sie vielleicht nicht. Das ist naturgebunden, das kann ich nicht steuern. Und so ist auch der Polizist naturgebunden. Wenn ich Gutwill gegen Sie habe, kann ich das ganz anders machen als jemand, der Mühe hat. Das gibt es einfach. horta marka ugu dambaysa wuxuu yiraahday macnaha in laga hadlo waa xun tahay laakiin sida caadada adinkana waa ogtihiin dadka madowga ama Afrikaanka waa dadka badana looga tuhmo inay daroogada iyo ku lug leeyihiin maadaama ay daroogadaas ku lug leeyihiin waxa dhici karto dadka booliiska markay baarayaan inay indho u lahaadaan dadkaas madowga ay si fiican u baaraan oo dadka kale ay u baarin anagoo dhantaas waa ognahay mideeda kaleeto waxa aniga adinka isku mid aan uu yiraahday binaadana nahay waxaan nahay dad isku mid laakiin wuxuu yiri waxa dhici karto qof inuu qofka kaleeto u yahay qof dabeecad fiican ama uu ka helay laakiin kaas kaleeto uu isan iga helin marka dadkii isku mid maahan uu yiraahday booliiskan waa sidaas oo kaleeto qofka haduu si fiican qof oo maaragtay u shaqeeyay ama ay ka muuqato qof fiican inuu yahay mar walba etabo ka maxaa la dhahaayay qadarinayaan qofka ay ka arkaan inuu qof dulli yahay ka soo qaat waa kaga waa faanteena uma leeynaya way kaga firfircooyin qof oo dulli ama qof oo si fiican si kale u kala kontrolayaan waxa jirto qofkan inaysan ka helin siduu yahay dabeecadiisa iyo wixiisa qofka kaleeto sida labada dhinacba way ahaan kartaa in la iska helin marka saas daraadeed su'aashaadi ma lagaaga jawaabay dadka madowga wuxuu leeyahay lighter in oo daroogada ay u badan yihiin saas daraadeed ay u leeyihiin okay okay waxay ayadaan uga jawaabayaa sie meint muss man erkenntnis haben zum Beispiel die Menschen obwohl sie sind dunkelhäutiger sie sind nicht alle gleich und somalische eher ist weniger wo Droge zu tun haben ja ja wiilkana wax yar sheego kugu soo noqonaya wax yar Ich verstehe Sie, man sollte neutral zu der Person gehen, aber ich kenne die Situation ja nicht, was dort gewesen ist, oder das muss jeder selber entscheiden. dadka isku mid maaha waa ku fahmi karaayo ku leeyahay hadii meel la aadayo si oo wada siman oo neutral in loogu tago waaye maadaama dadkii wada baarayaan waa ku fahmi karaa laakiin aniga iguma dhicin uu leeyahay qof walba tan si kale wax u sameeyaa
Ja. Vorher, Sie haben gesagt, wenn ich gehe nach Somalia, ich bin hell, ich habe eine andere Religion, die Leute reagieren mich vielleicht andere, als sie haben mich Angst. Aber umgekehrt, sie meint in der Kanton St. Gallen, wir sind nicht nur eine Person, wir sind ein Volk, wo mehrere Leute ist. Denn das kann nicht sein, dass sie Angst haben, die Leute, sie müssen uns auch reagieren. Ist verstanden worden, die Angst vom Unbekannten. Es können auch 1000 Schweizer nach Somalia gehen, Mogadischu wohnen. Ja. Dann hat die Bevölkerung vielleicht auch Angst unter Umständen vom Unbekannten. wuxuu ku leeyahay sax waa laakiinse haddii xataa Swiss badan ay aadaan Soomaaliya oo Swiss tira badan ay aadaan macnaheedu wuu ahaan karaa xataa inay ka cabsoodaan maxaa yeelay dad badan oo nooc kala ah waa cabsida mar walba ay waa jirtaa hal ha ahaado ama koox dhan ha ahaato cabsida way jirtaa way imaan kartaa okay waa sax dadka madowga oo 9 baashi waa lagu tuhmaya laakiin waxa dhici karta mid madow oo singaaran degan oo aan sharci haysan oo aan korosaniin gaari karin in la yiraahdo darow gadaya booliisku marka qofka u keenayay ma xagee ka imaanaya yaa waa cadaan u qonay in kaan qoftu uu shaqaysan leeyahay iskaraatinayo laakiin xagee ay ka timaa aslaan ninka madow waa sharci ma haysto mas'alka looga soo meint, gibt's ja, stimmt schon, Sie haben gesagt, die Schwarzen, man denkt, dass sie Mehrheit Drogen zu tun haben. Zum Beispiel eine Schwarze, wo in St. Gallen wohnt, kann schon sein, er hat keine Bewilligung, er kann nicht reisen und über Grenzen auch überqueren und die Drogen mitnehmen. Woher kommt diese Drogen? Ist das nur schwarz? Kann man da sagen, dass es nur Schwarze zu tun haben? Oder gibt es auch Leute, wo nicht Schwarze sind? Also, dass wir uns richtig verstehen. Es hat in der Stadt St. Gallen Leute aus Afrika und das sind nicht nur Schwarze, ich meine arabischstämmige Leute sind auch hellhäutig. Und es hat selbstverständlich auch Schweizer, die Drogen verkaufen. Aber es ist auffällig, dass gewisse Personengruppen mit unseren Drogenkonsumenten Kontakt haben. Und das ist auffällig. Und das sind sehr viele Schwarzafrikaner, die unterwegs sind. Und
hadduu malagi dhawaaqe Thank you.